Somaliland arrinteeda waxay soo taageeray 30 sano marka de hawl 30 sano tiilay ma sahlana in hal subax lagu soo koobo lagu soo dhameeyo ma sahlana waa koow dadkii waxaas ay ka dhaxeeyeen 30 sano ka hor dhibkii dhacay ilaa ay maanta isaga imaan waayay ee xalli waayeen anoo nin kala diyaaradiisa saarnaan tagahan soo xalinaan aydan xaaji suurtagelisay maaha ma garanayo cidda oo kula talisay muxuu ahaay madaxweynaha arrintaas kula talisay ma aqaan laakiin de sida oo halkan laga sheegay ragga madaxweynaha talada siiyo oo la taliyaashiisa ah yaaba afkaartooda ay muxuu ahaay banaanka taalaayo meel walbaba ka sheegabo khaa'iniin ay ahaayeen dalkay kala gooyeen in la ciqaabo oo maxkamad la saaro waaye mid yiraaho dhibkii dhacay iyo wixii dadkaas ku dhacay maalintii dhacay saxay ahaydba in sidaas la yeeray ahayd iyo dad waa dadka madaxweynaha dhinacyaha ka fadhiyo oo la taliyo oo warku u sheego oo waaye aragnimada uu ka qaato oo maxaan ku radaa caqliga u doonto hadda waxaan u maleynaa intaas dadka Soomaaliyeed inay wax fahmi karaan dadkaas Soomaaliyeed ee dhulkaas degan laba qabiilo isdirtay lama ahayn maxaan ku radaa lama ahayn reer ku duulay iyo deegaan ku duulay lama ahayn dawlad dadkeedii iyo dalkii qaybo ka mid ah inta qaadatay xasuuqday ay ahayd dabcan marar badanna waa la wada sheegay dawladdaasi dalka oo dhan iyo dadka oo dhan dhibaato u geysatay laakiin waa si kala duwan tahay meelan meeshaas ahayn oo dalkan oo diyaarada lagu duqeeyay ma jirin meelan meeshaas ahayn oo magaalooyin dhan dhulka la dhigay oo la xaaqay oo laga dhigay ma jirin meelan meeshaas ahayn oo dadku ay maxaan ku raadaay xawaalo wadareed iyo maalin walba la soo qodo la arkaayo dalka qaybiska kale waa jireen dad badan oo Soomaaliyeed kuwa dawladda ceelasha u sameysay baraagta kuwa maxaan ku raadaay farxumo iyo muxuu ahay magaciisa lagu rakacay kuwa akhyaartoodii iyo odayaashoodii la dilay kuwa maxaan ku raadaay si oo yaani aan fiicneen loola dhaqmo waa badnaan laakiin wixii ka dhacay waqooyiga Soomaaliya waxay ahayd wax gudabar u tumanay oo xaajo gooni ahayd marka waxaan aad iyo aad u garawsanahay inay mudan tahay si gooniya in loola macaamilo si gooni loola macaamilo aan midowno aan isku darsano aan hal dal noqono waa waxa wax ugu fiican oo aan jecelnahay ilaahay idinkiis waa qaba ana qabo dadka intiisa badanaa qabo laakiin midnimadaasi siday ku imaan kartaa la rabaa aqli iyo wanaag iyo niyad samaan iyo walaalo ay ku imaan kartaa dagaalkaas iyo xumaantaas dhacday 30 sano ka hor kadib wax weyn oo hadda koonfur iyo waqooyi kala gaaray ma jirin laakiin tiyaa gudna waa arkaysay baryahan oo dhan markii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya geeyay meeshii la yiri wixii ka dhashay yaani dhaawacyadii iyo boobtii dib inay u xogantay oo dib looga dhiijiyay oo dib maxaan ku canaaniyadeed iyo xanuunkeedii dib u soo wada kacay waa dhageysanayeen waa arkayseen ninka dhalinyarada ah ee baryahan oo dhan maxaa ahay hadaladiisa la hadalhay ee dhahay reerkeena aniga kaliya ka nool anigu cunjiro cararayana muxuu ahay reerka dhan la laayo oo la dilay oo maxaan ku ilaalay ay diyaarada inta naga daba timid ay nabada duqeysay aniga kaliya adeerka soo kuriyay ana nool walaal markaan arko wiil hooyadiis hooyo ay leedahayna waa xumaada markaan arko nin walaalkii oo walaal leh oo garab taagayna waa xumaada marka waxaasi waa dhaceen hadda wiilkaasi waalidkiis iyo walaalihiis ma soo noqonayaan laakiin si uu uga qanci karo uga daawoobi karo qalbigiisu nadiif u ahaa karo oo tabashadaasi ay u baabi'i karto u daawoobi karto oo u cafi karo waxaas dhacay oo uga imaan karo oo wax ka wanaagsan wixii dhacay inta uu arko oo uu qanci karo uga gudbi karo lama iloobi karo wixii dhacay waa ka hor muqdaan laakiin waa la cafi karaa waa laga gudbi karaa go'aan lagu gaari karaa in maxaan ku laakiin wixii dhacay wax ka fiican waa qofka inuu arko oo go'aan u gaaro taariikhdaas hore inuu inta iska gooyo iska reebo maxaan ku middan cusub ee hadda socota oo jaan qaado marka waxaan leeyahay madaxweynuhu
قراوشي سومالا وكديبينه بالو في عنا وافعنا لكن ما دمسترنين قدان وحقوق عطفي وقدان وحرنا ما في عينين dadkaas ayaga la laayay ayaga la xasuuqay ayaga la waxay cidda ay cudurdaar u bixinayaan waxde oo la fahmi kara ma waa waxyaabaha madaxweynuhu ay ficnaan lahayd inuu sharaxaad ka bixiyo cidda ay cudurdaar ilaan beel la dirta ma ahayn oo reereebanu anagu ay cudurdaaranay adikana noo cudurdaarta la leeyahay ma ahayn marka cidda ay cudurdaaranayaan ayadana waa ficnaan lahayd si loo ogaado madaxweynuhu ka bixiyo dadkaasi hal statement oo meel laga sheegay kuma daawoobiyaan horey loo soo sheegay annaga dhamaadaan raali ahaada waa ka xunaa waa ka cudur daaranina kuma ay daawoobin kuma filnayn marka wax ka weyn isi ka mug weyn isi ka qaab weyn u baahan tahay wixii maxaan ku iyo waayaheeda u baahan tahay iyo muxuu ahaa qaabkeeda loo xiro marka taas waxaan qabaa arintaas arin xoogaa magaca jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo gaar ahaan dawladda maanta jirtaaba xoogaa ka sabqatay noqotay meel hadaadan adan ka raay karin loogama daraaniira boogii hadii adan bayi karin oo daaweyn karin oo bogsin karin inaad dantankiso maxaan ku iraaday jukayso waa laga fiican yahay leenahay marka walaalahaas hawshooda waa Soomaaliya oo dhan iyo mas'uuliyadda mustaqbalka iyo intii timaado inay u taala aad ayaan ugu kalsoonahay in ay wadada saxda ah la soo maro xal weyn laga gaari doono oo raadin isluuday taas marka meesha rabaa inaan ugu habo midda kale soo hartay dadka dawladda maxaa lagu yahay qarniga 12aad waliba dawladda maalin meel soo martay maalinay muxuu ahaay boqorro iyo maalin maxaan ku ilaadaa nin xoog badan oo ciidan haysto iyo maalin ay maxaan ku ilaadaa askari muxuu ahaay inqilaab sameeyo xoog ku qabsaday iyo maalin hadda adduunyada waxay soo gaartay askari hadduu dad xoog ku qabsado lama aqoonsanayo lama aqbalayo ma la aqbalayn caalamku inuu yiraahdo ururka midowga Afrika uu diido igada diido iyo meel walba laga diido xoog ku qabsado gaa soco dadka xoog loo maahaysan kare maanta maalinna konton iyo dhowrka dawladda Afrika joogto intooda badan askar ka talin jirtay marka waayuhu waa socdaan hadaad ka gaabiso waa sideedo kale madaxweynuhu marar badan oo ku celceliyaa waxaan xuduudaha dalkan soo xirin dalka dariska qaarna waa xun yihiin qaarna waa fiican yihiin siyaasaddu saaxiibo iyo jacayl gaar ma laha waliba dawladdu danay matashaa danahaasay ku xiran tahay qofka isku fiicnaanayaan iyo qofkaan isku fiicnaanin danahaasay ku xiran yihiin aad iyo aad ayuu madaxweynuhu ugu celceliyey maalin dhaweyto dawladda Kenya cadow inay tahay in ay waxalaysay in laga maarmay in laga waxay waa isku xunaay fargelin ma garanayo aniga dadka Soomaaliyeed ayaa ku habboon inay ka jawaabaan meesha Kenya ee cadow aan la soo gali karin ay noogu tahay Eritrea iyo ninkaas 40 sano iyo jajarka joogaan oo xabiib maxaan ku ilaahay oo noogu yahay waa ayadana garashay u baahan tahay waxaan rabaa inaan sheego kale maalin arinta badda sababteed Kenya iyo dawladdeena iyo dawladda Kenya isku hayaan wuxuu sheegay arinta badda ayadoo maxkamadda taalo ayaan Kenya isku fiicnay isbooqareynay isu imaanaynay isu waxaynay maxkamaddu ay taagan tahay oo qadiyadeeda ay taagan tahay oo waliba aan muxuu ahaay aad la isaga warwarsanin oo laga hadlin soo marnaan joognay waayeen maanta marka maxaa keenay maanta waxa keenay madaxda dalkeena ayaa arinta badda si xun u isticmaashay dawladda Kenya ayaga oo carab la laadiyay ayaga yiri xalan gaarina maxkamadda banaankeeda lagu xalinaa hebelow muxuu ahaay waxay dal hebelow muxuu ahaay soo bax gacanta ka qabo wad Nairobi fatah ka sii cawdiyo daji maxaan ku yiraahdaa waa xalinayna waxa sideedaba curfiga diblomaasiga been laga ma sheego diblomaasiyadda ma gasho maanta been ka sheegay bariin iska baxmay ma gasho diblomaasiyadda ma gasho ballan intaad ballada ogtahay inaad fulinayn inaad qaado madaxweynaheena ra'iisul wasaaraheena way ogaayeen arinta badda inaanay maxkamadda ka soo celin karin dadka Soomaaliyeed aan ka aqbalayn sabab ma jiro marka Kenya ugu carab laadiyaan ay dad badan u geliyaan oo inta xal laga raadiyay dhahan oo bal dib ha loo dhigo muxuu si aan xal u helno dacwada dib ha loo dhigo aan isla dhahno anaga Kenya ilaa anaga kaliya dacwada dib uma dhigin Kenya kaliya dib uma dhigin waa isla dhahno
dacwadu waa siyaasadeyn ra'iisul wasaare ku-xigeenkeena iyo madaxii mas'uuliyiin meesha u dirnay dad sharci yaqaana iyo farsamo yaqaana loo diri jiray bulshada rayidka maxkamadda loo diri jiray si ay goobjoog u noqdaan oo arkaan u dhageystaan diasporadan loo diri jiray bulshada rayidka ee beledkan joogtaa loo diri jiray dad muxuu ahaa xeer yaqaana iyo shuruucda dowladda wixii sharciga ilaalintiisa u qaabilsan oo xeeralayo u weynaa loo diri jiray laakiin siyaasiyiin muxuu ahaay ma dhex istaagi jirin maxkamadda in wixii hadda campaign siyaasadeed iyo magac siyaasadeed lagu raadiyo ciladaha jiray ka mid tahay kenya iyo dowladdeeda waxay isku hayaan maxkamadda case laga yaallaa ma aha waa ballamada iyo carablaalaadiska iyo rajagelinta iyo ee laga baxay birina laga baxay waaye oo maxaan ku la fulin waaye waa wax la isku haysto Soomaaliyeed fahmaana inta jeerad idaacadaha iyo mas'uuliyad dalal kale iyo meelo kale aad ka maqasheen maxkamadda banaankeeda macaamilaha socdo waa la heshiina oo boqolkiiba muxuu ahaa 40 xagga loo qaada boqolkiiba 50 iyo xoogaa xagga loo qaada inta la kala waxayna madaxweynaha xisbi ma aanu suubsan xukuumaddiisa xisbi kuma ayna dhawaaqin doorashadina waxaa ka dhiman 7 bilood iyo 8 bilood haddana waxa uu leeyahay waxaan rabaa sharcigaasi in lagu dhaqmo waa soo dhaweynaa doorashada dhacdaan rabnaa shacabka in loo doorto ay loo noqdaan rabnaa laakiin mid inaan la yeelaynin madaxweynaha waxaan rabaa inuu hoosta ka xariiqdo waqtigii doorashada inta la gaaro sharciga la rabaa in la tadbiiqiyo sidaas darteed dib ha loo dhigo inaan laga yeeli doonin 3 sano soo heystay sanad kale hadda u socdo 4 sano ninkii wadankan gaarsiin waayay in la isku doorto hal maalin oo kale inaan loogu dareynin inuu madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ay qorshaha ku darsadaan u baahannahay maxaa dhacay haddii uu rabo inuu doorasho galo mar hore ayuu madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba ay maaragtay ka shaqayn lahaayeen in axsaab la dhiso in shuruucda la dedejiyo in wax walba la hagaajiyo oo la diyaariyo marka waxaan rabnaa in aanan dadka lagu mashquulinin sharciga oo la yiraahdo hadhowta sharcigii baan ka shaqaynaynaa maalmahana loo kaadiyo maxaa dhacay haddii aad ogtihiin madaxweynaha warbixintiisii ama waraysiga telefishinka universal uu siiyey waxa uu tilmaamay wadankan inaan loo baahnayn isbedbedele in uu sii socdo u baahan yahay madaxweynuhu waxaa ku sii joogi kartaa oo ku sii soco kartaa adigoo lagu doorto xildhibaano ku doortaan shacab ku doorto sidii waagi hore lagu doortay ummadda ay ilaa hadda ka hore lagu kadsoomay inay ummadda mar kale kugu kadsoonto kaliya ku sii joogi kartaa laakiin aniga wadaayo shaqa ii socoto wax fiican aan wadaa wadankan xageen uga tagaa wararka naga soo gaaray ka mid tahay waxaan rabnaa madaxdii ka horeysay oo wadankaani ku soo dhibtootay nin walba asagoo arkaayo intuu doorasho galo ka tagay markii codka uu waayay waxaan rabnaa inaan codka aad ku kalsoonaato lagu doorto haddii lagu dooro waayo ama lagu kadsoomi waayana inaad sidaa wadanka ugu timid oo nabadda ahayd oo labada gacan lagaaga qabtay in madaxda ka dambaysa gacmaanta ka qabatida ku wareejistaan ka rajeynaa haddii ilaahay raali karo subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo maalmahan socotay oo siyaasadda ka mid ahayd waxaa jirta in la tilmaamayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu rabo inuu safar ku tago magaalada hargeysa war tiro badan oo qof kasto xaqiiqadeeda aan ogeyn ayaa meel walba laga sheegayay xalay waxay ahayd fursad madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed inuu la hadlo oo uu yiraahdo arintaasi sidaasay ahayd waxaan rabaa hawshaas inaan qabto dib u heshiisiin aan rabaa inaan ka shaqeeyo ujeedadeeda noocaas ah inuu yiraahdaan rabne sida caadada ah madaxweynaha waxa muhiimka ah waa uu ka leexdaa dadka lagu daayay inay uga hadlaan inuu asaga soo hor istaago shacabka oo yiraahdo war aniga waxaan rabaa saan iyo sidaan walaalaheena sidaan rabnaa ula hadalno sidaan rabnaa inaan negotiation ku galno nabadii aan raadinayna ayaan rabnaa inuu madaxweynaha ka hadlo waxaan u maleynayaa madaxweynaha dadka la taliyaashiisa ah ayaa hadlayay maalmahan oo dhan qaarna waxay lahaayeen in waqooyi la garaaco oo diyaarad lagu garaaco xaqay ahayd saxay ahayd ay dhahay qaarna hadda waxay lahaayeen xoogaaba lagu soo qabana marka waxaan rabnaa madaxweynaha la taliyaashiisa waxay aaminsanaayeen ma aaminsan yahay mase wuxuu rabaa inuu ku tago Hargeysa asoo saaran Abiy Ahmed dushiisa dadka Soomaaliyeed waa dad mug leh waqti fiican qaatay siyaasadda adduunka meel fiican kaga jiro ma saarnaan karno dusha Abiy Ahmed nama qari karto
in mar walba oo dawladda la dhaqmeeno ama dhaxdeena la dhaqmeeno in madaxweynaheena uu dusha u saaran yahay kaliya Abiy Ahmed oo marna diyaaradda inta ku qaado uu geeyo maaragtay Nairobi marna diyaaradda ku qaado Asmara geeyo haddana uu yiraahdo Hargeysa ku geeyna wax u qalbo maaha shacabka Soomaaliyeed liidarkiisana wax u qalbo maaha waxaan rabnaa madaxweynaha inuu ka hadlo dib u heshiisiinta Soomaaliya ay rabto inay ku soo celiso walaalaheena waqooyi oo leh waan goosaneena wuxuu xal u hayaa in gudiyo u saaro waliba dad aaminsan in la isku soo noqdo inuu saaro rabnaa ma rabno inuu u saaro dad aaminsan shala markii la garaacay xaqeed dadna inuu u saaro ma rabno waxaan rabnaa inuu u saaro dad aaminsan in Soomaaliya isku soo noqoto haddii ay walaaleen wax sheeganayaan waxay ka sheegan lagala hadlo haddii ay wax ku qaldan yihiin waxay ku qaldan yihiin waxaan leedahay aqbali karo waxay ku saxan yihiin waxaan waa leedahay aqbali karaa arrintaasi waxay u baahneed waxaan filanahay xalay qof walba markay ii sheegtay madaxweynaha hadlaayo inuu arrintaas ka dhawaaqi doono oo noo sharxi doono wax nooga tilmaami doono laakiin sida caadada ku ahayd madaxweynaha ku baranay waa uu isilmaansiiyay maaragtay waxaan aan laga sugayn oo ka dhigay waxaan loo baahneen oo ka dhigay waana qadiyad muhiim jiddan ah waa qadiyad muhiim jiddan ah inuu ka hadlay ahayd oo yiraahdo sidaasaan rabay amaba asaga uu toos ula hadlo walaaleen Soomaaliland oo Abiy Ahmed u marin mar walba iyo meesha uu tagay sidaas aan u baahanahay maxaa dhacay dad jaranahay dawladaan leenahay waxaan leenahay jiritaan aan leenahay magacaan leenahay siyaasadaan leenahay siyaasadeena ma u noqon karto inay dulsaar u noqoto ama ay saarnaato Abiy Ahmed meesha uu maray kaliya inaan la marno